معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا وقبل كل شيء وهدونا إلهي وإسكاله سبحانه وتعالى إن لو أقول هذا إلهي بيت كيسا بركيسا من أسكول لبعضنا sidaad maqlayseen fadhiga maanta way loo gabagaboobi doontaa axkaamtii dahaarada ee soo wadnay oo majliskii 8aad buu noqon doonaa. su-aalaha intaan la gudagelinna waxaan ka warreysiinayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala 3 qodob oo khulaasaynta axkaamta dahaarada wixii inooga dhinaaya insha allahu tabaaraka wa tacaala. bal qodobka koowaadi waxa weeyaan, maadaama mowduuca ay ugu dambeysay najaasaadku iyo axkaamtoodii aan kasoo hadlaynay majliskii ugu dambeeyey, arrimo waxaa jira aan najaaso ahayn cala alqowl alraajixi min aqwaali ahli lcilmi oo markaas waxa weeyaan dhib aan lahayn. arrimahaas waxa weeyaan midda koobaad waa markaas waxa weeyaan alqay-u. matagu najaaso ma aha, culimada qaar ha ku tilmaamaan najaaso, laakiin aslan waxaa saxa inuu najaaso ahayn matagu. waxaana saa u leenahay asalka ashyaadu waa daahir weeyaan, qaacidaduna waxay tahay al aslu fi lashyaai adahaara. asalka ashyaadu waa daahir, wixii nusuustu ay tilmaanto inuu najaaso yahay mooyaane. naskuna waxa shardiya markii uu waxa weeyaan loo daliishanayo mas'alada ama shayga xukunkiisa loo daliishanayo inuu yahay nasku saxiix, laba inuu sariix yahay oo mas'alada ku cad yahay. haddaba markaas waxa weeyaan kitaabka iyo sunnada nas saxiixa oo sariixa oo mas'alada ku soo arooray ma jiro ilaa xadiidka camaar ibnu yaasir mooyaane. xadiidka camaar ibnu yaasir oo nabigu markaas waxa weeyaan la wariyey inuu yidhi waxaad maradaada ka maydhi markaas waxa weeyaan kaadida iyo dhiigga iyo mataga iyo xadiidkaas markaas allahu lmustacaan biitifaaqi ahli lxadiidi waa markaas waxa weeyaan allahu lmustacaan daciif weeyaan oo ma sugno. saa darteed markaas waxa weeyaan waa in waxba aan la ysku kallifin. arrin kalena way jirtaayoo qaacidada sharcigeenu waxa weeyaan waa nafyu lxaraji can ishariica, in culayska markaas waxa weeyaan dadka laga kor qaado. almashaqatu tajlibu taysiir, yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أدلة إي قواعد الشيء وحاية الماميسا المركة تخفيفك إي تيسيرك شرعي مركة سحوية من وحوق ساري oo wixii culays addoommada laga fudaydiyo. xaraj iyo culays badan baana ku jira hooyada ilmaha wadata mar walba oo ilmahaasi uu ku matago ama uu ku faardaaco inay markaas waxa weeyaa waa najaasowday la yidhaaho culays badan baa ku jira. ma inkirsanin inay masalada culimada muslimiintu ay ku kala aragti duwan yihiin, laakiin saasaa sawaabka u dhow inuuna wax dhibaato aan ahayn. masalada kale waxa ay tahay markaas allahu lmustacaan calayhi tuklaan waa masalatu addam, waa dhiigga. qofka haddii ay wax mudaan ama wax ay saraan oo halkaa fartaba ay wax ka saraan, dhiigla uu ka soo boodo, isaga oo dhan wuu tukan karaayo ma lijaasoobin qofkaasi.
ولو فقهاء قاري قليل كثير إنه بديه إنه يريه أي أقيميه لكن هو مسألة علماء ويكون كورتي دويه إيضا مركا ليغاس وحدباتا إنه لهين باتوس أي مركا سحويان أي مركا لا قادنا يا وصوش الجود يا ظواهر النصوص صحيح البخاري وحكى السؤال لمن باوحد عظيم أي النبي صلى الله عليه وسلم قارك هيوين قال باللبدي أسو غورغورتay oo waxay sameeyeen way isku kaalmaysanayeen midkood marbu yar diibsanayay ama uu iska tukanayay ka kalena uu ilaalinayay waxa dhacday markaas waxa weeyaan intii mid baa markaa waxoogaa yar diibsaday kii kalena ee ilaalinayna salaad buu iska galayba salaadiisu oo ku jira gaal baa u soo gurgurtay oo leeb buu ku dhuftay uu iska gooyo salaadiisu iska sii watay أحلى مريهم كمان بحين صلاتي حضروا واحد على مرة بعض أيو الليل كي يكون رفتوه ويسكجوي حضروا مرة صدحوا ويكون رفتوه ويسكجوي ديجي سيبا الدرايري النبي عليه الصلاة والسلام قد يدعو الله الشيخي النبي قبور أورال برخص حوي ليج كاي بدوان النجاسة بحد صلاة برخة أقبح ويذي كبور أورال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة شرعي وحويا لا يقرق على باطل شيء يهدو دم يهي أما باطل يهي أما شيء صح هين يهي النبي عليه الصلاة والسلام كما آمصو سادرت المركز حويا وحيث السنيسا ديقا جركا غادي وحكو الصران كايبي مرضى كاملي أما جركا إنو نمركا وحمل نجاسة وراهين دين النظافة اسكيما يدمويان ابن أبي شيبة وحوري مصنف كيسا نبي حسن البصري تابعي قال لي يراه أيوحي ما زال الناس يصلون في جراحاتهم دادكو كمين التغين إلي كنت كنيان داوعونا صحابة يقول داوعي تكنيين انتاسو الدولمان يدقال بيقاليين سيفا كنا عيسي ورنبا كنا عيي leeb baa ku dhacayay dhaawaca iyagoo ah ayay tukanayeen amar la siiyay oo sharcigu uu siiyay banjira dhaawaca horta iska mayra walidaalika ayuu qofku isagoo dhaawaca uu tukani marka hadii waana xaraj iyo culays baa ku jira waxa laga yaabaa qofkan inuu dhaawacan sida qaalibka ana la yaqaano inuu markaa muddo waxoogaa uu jiitamo dhaawaca qofka iyo markaa dheecaanka iyo dhiigga ka imanaya waxa kale iyaduna waxyaalaha dhibaatada lahayn kamid ah oo markaas waxa weeyaan Allahu musta'an dadkuna laga yaabo inay u arkaan najaaso boog hadii jirkaagu uu yeesho boogtiina markaa malax ay geliso malaxdaas hadii markaa iyo dheecaanka adiga oo leh ayaa tukan kartaa oo markaas waxa weeyaan najaaso ma aha qodobka afraadi waxa weeyaan waa almaniyu manida weeyaan biyaha manida la yiraahay ilmaha laga abuuro almaniyu waa biyaha ilmaha laga abuuro biyaha manida iyaguna waa daahir qowlka sawaabka min aqwaali ahli ilmi al-imam Shafi'iyana ay ku tageen qowlka marka waa xadiiska Aisha radiyallahu anha wardaha waxa ku sugan saxiixa Muslim iyo غيرkii biyaha marida yaa marada nabiga calayhi salaatu wasalaam ka jibin jiray ama aan ka hoqi jiray oo ciidadayda kaga hoqi jiray walaw kaanat najasatan lama farqakata hadii ay najaaso noqon lahayd mayna jibiseen mayna bay u baahnaan lahayd illa mayno way soo aroortay isla xadiiska Aisha in marka ay maydhay laakiin mayrigana lilnadaafati iyo marka wasakh ahaan baa la iskaga maydhayay marka jijibintana waxay tusinaysaa in ayna najaaso ayna ahayn waana aslu bari aadam wa markaas waxa weeyaan asalkii bari aadamka weeyaan qodobka shanaad waxa weeyaan waa umumul balwa wama la yumkinu minhu al-ihtiraz wa waxyaalaha umumul balwa ay yaqaaniin fuqahaada la iska ilaalin kareen waxa jira aan la iska ilaalin kareen haddii markaas waxa weeyaan kaadi u fariisato laazim kaadaasi way duulaysaa laakiin markaas waxa weeyaan duulitaankaas
adiga waxa lagu amray wixii aad arkaysa inuu ku soo gaaray marka inaad iska hagaajiso laakiin waxa haddaadan hubin inuu ku soo gaaray in kale haba duushee waa najaasada u yaqaanay mimma laa yudrikuhu darfu waxaan la arkaynin waxa kaloo kamida mimma laa yumkinu minhu al-ihtiraz waxa kamida iyo umum al-balwa haddii markaa roob uu da'o biyana uu keeno biyaha sida qashin iyo najaasi iyo saxari iyo kaadi iyo wax walba ay soo qaadaan la iskama ilaalin karo ama gaari ha kugu soo daadiyo ama adiguba isku daadi la iskama ilaalin karo waa mimma laa yumkinu canhu al-ihtiraz weeyaan waxa kaloo kamida diqsiga iyo xayawaanka kugu dul istaagaya haddii aad aragtaba hadda isagoo najaasa ku dul istaagay kadibna uu soo duulu adiga kugu dul istaago meeshii uu kaaga istaagay inaad maydho waxba lagama qabo walidaalika imaamu shaafici baa la weydiiyey raxmatullaahi calayhi oo lagu yidhi bal ka waran diqsi aan arkay inuu najaasa hadda ku istaagay iyo saxaro kadibna uu soo booday oo aniga igu dul istaagay bal ka waran markaasaa wuxuu yidhi hadduu soo duulay uu hawada soo maray dee hawadaaba markaas waxa weeyaan daahirisay haddii kalena wuxuu yidhi idaa daaqa al-amru ittasaca arrintu hadday cidhiidhi gasho waasic bay noqotaayo dee diqsiyaa iska ilaalin kara la iskama ilaalin karo wixii aan markaas waxa weeyaan isla markaa haddii la kala gooyo ama la dilo dhiig dureeraya iyo dheecaan socda iyo nafsun saa'ila aan lahayn sida haddii injir ay kugu dul dhimato tafki hadday kugu dul dhimato haddii diqsigu kugu dul dhinto waxyaalaha noocaasa iyaguna waa macfis iyo cafis weeyaan waayahay allahu lmustacaan calayhi tuqlaan arrimahaasi marka wax dhibaato ah male qodobka kale wuxuu yahay kayfiyatu tadhiiri min najaasaati bal in la iska dahiro iyo hawsha waan ka soo hadalnay qaabka la iskaga dahirayo 11 qodob baan ku khulaasaynayaa qodobka hore waxa weeyaan kaadida sida la iska marada looga dahiro waxa uu noqonayaa caynta iyo daatada kaadida in la zuuliyo urteedana la zuuliyo midabkeedana la zuuliyo dhadhankeedii la zuuliyo hadday cayriyo tahay oo wax la arka ay tahay haddaan la arkaynin laakiin la hubo najaasadan inay ku dhacday maradan iyo kaadidan inay ku dhacday la hubo biyaha unbaa lagu dul shubi oo meeshii haddii gooni loo garanayana intii ay najaasadu kaa gaadhay intaad qabato unbaa tuujinayo mayri haddii aad hubto mayanay inay najaasa maradan ay gaadhay laakiin meeshii aadan garanayna dhammaanteed waad wada mayri uun alghaayid qodobka labaad waxa weeyaan saxarada sida la iskaga dahirana taa kaadiduu la mid yahay oo daatadii iyo cayntii iyo wixii waa in la zuuliyo urtii iyo midabkii iyo dhadhankii waa in la zuuliyo qodobka saddexaadi haddii kaadi dhulka laga dahirayo see looga dahiri waxa looga dahiri biyo baa lagu shubi biyo fara badan haaf biyo iyo caagad biyo baa soo qaadiyo meeshii kaadidu ay gaadhay baad ku dul shubaysaa waxa la midar hoogan haddii ay kaba soo qaad kaadi ay gaadho qadarkaa ay gaadhay unbaa la goobaabi tashti iyo wixii lamida iyo weel unbaa hoosta laga dhigi intaa keliya la mayri oo biyaha lagu mayri khalaas marka saasuu ku daahiroobayaa dhulkuna ciid hadduu yahay iyo hadduu sibir yahay iyo hadduu marmar yahay waa isku wada mid ee wuxuu kaga duwan yahay keliya marmarka iyo sibirku dee waa inaad zuuliso wixii midabahee najaasadu ay lahayd ee ka muuqda qodobka markaas waxa weeyaan afraadi wuxuu weeyaan tadhiiru lmadyi walwadyi madida oo najaasada aan ku soo darnay oo biyo yaroo yimaada galmada dabadeed ama ka hor ama qofka xubinkiisa taranka markuu dareen gala ah ama wadida biyaha la yidhaaho oo qofku markuu wax culus oo isaga ka tan badan uu qaadi iyo ka yimaada ama kaadida kadib ba yimaada kuwaana qaabka la iskaga dahirayo waa sida kaadida la iskaga dahirayo oo kaadida la xukun yihiin qodobka shanaad waxa weeyaa tadhiiru lxaydi dhiigga caadada seebaad marada uga dahiri dhiigga caadada marada waxaad uga dahiri marka koobaad dhiiggani hadduu ku qalalay waad ka jijibini markaad jijibiso dabadeed biyaad markaas waxa weeyaan haddana ku shubiyood ku jijibiniyood ku maydhi biyaha markaad hal mar ku jijibiseed ku maydho
haddana mar kale ayaad biyihii ku shubiyo aad ka raacini si aad uga saarto najaasadii. marada jirka hadduu kaa gaarayna waa inaad ka goyso unbaa lagaan rabaa. jirka inaad ka goyso unbaa lagaan rabaa. qodobka markaas allahu lmustacaan lixaadi, ilmaha yar kaalidu waa laba qaybo. markaa ilmo yar ama kaalida si kale haddaan u dhigno waxa weeyaan allahu lmustacaan waxay ku soo urureysaa markaas waxa weeyaan 4 qaybood bay ku soo urureysaa. qayb waxa weeyaan ilmaha yar markaas waxa weeyaan 2 sano aan dhaafin, caano mooyaane wax kan la quud ahaanan u qaadan, dawo ahaan iyo wuxuu u qaatay iyadu waa goori. iyo markaas waxa weeyaan isla markaa saxarana wixii uuna ahayn ilmahaasina inuu lab yahay. 4 arrimood marka laga helo inuu lab yahay oo gabar waa inuu ahayna wiil waa inuu yahay, 2 sanana uuna dhaafin, caano mooyaane wax kalena una quudanin, najaasadana kaali waa inay tahay, wax kale waa inayna ahayn, biyaha unbaa lagu rushay. adoo ilmihii markaas halkan gosha ku haya kelida ayuu markaas kugu kaajay wiilkii yaraa, jaag biyo baad soo qaadan oo kelidaaba baad ku shubi, khalaas salaada waa iska gali, inaad jibiso uma baahno. sidaasaad markaa ku daahiroobaysaa. fi jaamici tirmidi wagayrihina sidaasaa ku sugan inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, wiilka ama ilmaha yar wiilka labka ah waa la rushayni kaalidiisa, gabadhana waa la maydhi oo iyada waa kaan soo sheegnoon nidhi hadday markaa 3 habeen jirto iyo hadday 9 sano jirto waa isku xukun. waa kaani waayaha allahu lmustacaan calayhi tukulaa. qaybta labaad ee kaalidu waxay noqonaysaa basharka iyo bani aadamka intiisa kale inay ka timid markaa raggii waaweynaa, dumarkii waaweynaa, gabdhihii yaryaraa, isku wada dar, isku xukun bay iyagu noqonayaan oo sidaan soo sheegnay baa la iskaga dahiraya. qaybta saddexaad waxa weeyaan najaasada muqalladada ah ee ayga oo kale kaalidiisa inay tahay, taa iyadu xukun gooniya leedahay, waan u tegi doonaa. qaybta afraadna xayawaanka intiisa kale ayay noqonaysaa. xayawaanka intiisa kale labay u qaybsamayo, xayawaanka najaaso ay tahay kaalidoodu waxa weeyaan hal mar unbaad iska maydhi, xayawaanka kaalidoodu ay daahir tahayna waxa weeyaan allahu lmustacaan calayhi tuklaan dee waaba daahirba. qodobka 7aad waxa weeyaan maradaadan aad xiran tahay, dumarka wuxuu sharcigu amray marada inay sii daayaan ee dhulka xaabto. waayahan dambe hawshu way isbedeshay oo waa la istaba maray. waxa weeyaan raggii surwaalada iyo qamiisyada gaabsada la yidhi shuraabaad bay ka dhigteenoo way ku tumanayaanba. dumarkii la yidhi war maryaha sii daaya oo markaa dhulka ha xaabaanna way xaydxayteen, kubkoodiibaa ballaanka wada yaalla. sharcigu marka maadaamuu amray in markaas waxa weeyaan dhulka maradu ay xaabto, maradaadan iyo xijaabkan aad xiran tahay dhulka markuu marayo haddii meel najaaso ah oo qoyan uu sii maro wuu najaasoobay soo maaha. maxaa daahirinaya? waxa daahirinaya meesha kale ee engeganaya ciiddeed sii marayso. umu salama radi allahu canha waardaha baa nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam. waxay ku tidhi rasuulkii ilaahayow waxaan ku weydiiyey gabadhu halkeebay maradeeda gaarsiin. markuu nabigu ka warramay in raggu ay markaa kubka bartankiisa ay geystaan nisfi saaq, ayaa wuxuu yidhi dumarkuna taaka hoosa u sii daayaan. waxay tidhi idan yankashifna aqdaamuhunna, oo rasuulka ilaahay oo gomadahoodu way iyo markaas waxa weye cirbahoodu way muuqanayaan. haddaba dhudhul iyo xusul hoosa u sii daayaan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. waxay tidhi haddaba dhulkay maradu xaabin markaase ka warran. wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waxay tidhi markuu saa uu ku yidhi ayaa waxay tidhi haddii maradani ay meel qoyan oo najaaso ah ay sii marta ka warran, meesha engeganay sii marayso ayaa daahirinaysa buui. waayo qodobka 8aad waxa weeyaan kabaha in lagu tukadaa waa shay sunno ah. walow dee masaajidu markay sidan u gogla yihiin oo kale
dee kabaha aan lagu tukanayn loo dee masaajidka nadaafadiisa iyo hawshiisa in la ilaaliyo waa shay waajiba weeyaan kabaha in lagu tukadana waa sunni maslaxada waajibka iyo sunnahana maslaxada waajibka horeysa saadarteed waa laga ilaalin laakiin markaad ballaan ku tukanayso gurigaaga markaad ku tukanayso sunnada nabiga si aad u nooleyso mar adoo kabahaaga xiran Allahu akbar waa inaad tiraahdaa bidaliil qawlihi sallallahu alayhi wasallam waxa ku sugan fi sunan abi daawud wa ghayrihi waxa ku sugan inuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam kabiina ku tukada yahuudiya nasaarana khilaafa fa innahum la yusalluna fi na'alihim kabooda kuma tukadaan iyagu حديث صحيحين البخاري ومسلم وحكوا عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ايا waxa la weydiiyay nabigu miyuu ku tukaday kabihiisa markaas uu xuri Bukhari Muslim bay ku sugantaa diin cusub ma hadda wadaadku muxuu la dhihina waa Bukhari Muslim ku sugan waa Nabi Maxamed baa sameeyay ani waxba ay xamalin laha dhow waad fahanteen Soomaha waayahay marka kabihi marka waxa la rabaa inay daahir noqdaan qodobka aad u fahma laazimna kabaha najaas way mari kartaa ama najaas caadi ku istaag ama iyagoo suurigiyo qoyan balagal ama iyagoo ha qoyanaadaan najaas way soo gaaraysaa see loo daahir wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kabaha waad eegaysaa markaad galaysa salaada aad ku tukanayso ayaad eegi haddii aad ku aragto wax wasakha dhulka ku jijibin ciidaas aad ku jijibini waad ku qalajini saasi ku daahiroobiya haddaad waxba ku aragna alla basahal Allahu akbar qodobka sagaalaad waxa weeyaan ayga maadaama ka dugan yahay isagu xayawaanka kale najaasadiisa ama kaadiisa ha noqoto ama dhareerkiisa ha noqoto ama waxa weeyaan Allahu musta'an dhiigisa ka yimid ha noqdo ayga wixii ka soo gaara oo najaasa ayga waxa la bayrayaa 7 jeer waliba mid baa ciid lagu darayaa wanabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri walaqa alkalbu fi ra'i ahadikum falyaghsilhu 7 marghat ihdahunna biturab wa fi riwayati qulahunna wa fi thalithatin ukhrahunna wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam midkood 7 jeer waa mayri waa xawja waa ciid baa lagu jijibinayaa ama tohore ama tadambe ama dhexdaba midka doonta ka dhig najaasada aygu marka way culus tahay waa sidaas doofaarka isaga ka warqaba culimada qaar waxay tilmaameen in markaas waxa weeyaan uu la mid yahay aygu 7 jeer la mayrayo laakiin Allahu a'lamu al-ilmu 'inda Allah wa raajiha hal mar la mayrayo sida najaasooyinka kalaba waana qowl 'inda Shafi'iyyati waana qowlka uu doortay al-Imam an-Nawawi kitabkiisa al-Majmu' fi sharh al-Muhaddab ودورتي وياه احنا الدليل هو حديث ابي ثعلبة الخشني جلثوم بن ناشر احمديه مرقس حويا اي غير كيبا اي وريين النبي عليه الصلاه والسلام با وحو ويديي دد اهل كتاب لا دغن لها ويلكودا wax ma ku cuni karna markaas النبي عليه الصلاه والسلام waxa uu yiri waa markaas waxa weeyaa iska mayda ha ku cunna marka koobaad weelka hadiya hadaad weydiin iska mayda 7 jeer ma oran iska mayra u buuyin ولذلك المجر النص المام يتضبها الله ميره وقياسا على الكلب اي قوم uga qiyaas qaateen ay doofaan wax badan oo iska xiradii Allahu a'lam ma ogin waaya qodobka ku yitubnaadi waxa weeyaan subag baad meel dhigatay subagii aad meesha dhigatay waa subag qalan oo markaas waxa weeyaan fadhiya najaasa kaaga dhacday najaasadaasi haday kaaga dhacdo subaga iyo najaasada iyo inta ay ku fadhido un baad isla goyno isla tuuri inta kale waa la soo hariyo waa sax weeyaan nabiga waxa ka sugan calayhi salaatu wasalaam Abu Daawud iyo qeyrkiiba ay wariyeen jiir baa wuxuu ku dhaxdhacay oo ku dhintay subag fadhiya wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam jiirka iyo inta hareerihiisa ba isla gooyo isla tuura inta kale soo dhaw daahir caadi waayahay najaasooyinka si guud waxa weeyaan waa sida qaabka la iskaga daahirinayo iyo dahaaradoodu khulaasadu waxay tahay markaas oo culimadeenu ay u qaybiyaan najaasooyinka 3 qaybood
najaaso culus oo muqallada ay u yaqaaniin tu fudud oo mukhafafo ay u yaqaaniin iyo labadaa wixii u dhexeeya ta culus markaa waa taa ayga oo 7 jeer la maynayo waliba mid ciid lagu jijibinayo oo ciid lagu maynayo midda markaas waxa weeyaan fududin la waa taa ilmaha yaran ka soo hadlaylay markaas waxa weeyaan il la rushaynayo una biyo dushaas ka shubayso inta ka soo hadhay waxaa la rabaa najaasadii in la zuuliyo waa isku xukun waxaana shardiya markaad mara daahirinayso halka aad u dhageysa gabdha jaariyada oo xaafadaha dhammaan idin joogan baad mariyaha u dhiibtid qaab alla qaab ay u daahiriyeen iyo si alla si ay yidhaaheen warkama haysid mayna u baad tidhaahdii qasaalada ku wada gura u baad tidhaahdii waxa weeyaan mara markii aad mayrayso waa in biyuhu dusha ay ka yimaadaan maraduna ay dhex taallo weelka lagu mayrayo waxa khalada in biyihii tashtiga lagu shubo maradiina dusha lagaga keeno waa khalad hawshaas tashtigan soo qaad marada dhex dhig jeerkaankii biyahan halkan uu kuu yaalaa ku shub iyar ku may ka saar haddana ku shub haddana ka saar haddana waka qaabka waa inaad samayso ama dharkan qasaalada lagu wada mayro waxa kuu bannaan laba kayfiyo mid waxa weeyaan inaad dharkan najaasada aad goorintaadu ururiso hal mar aad wada maydho iyaga waad isku wada dhex guri kartaa oo 10 shay oo najaasa intaad ku rido yaad biyahana dusha kaga keeni kartaa laakiin bisharti markaa hore ay wareejisay ay maydho waa intaad ka dhex saartay inaad iyadana dhaqdhaqda kadibna aad mar labaad ka raaciso biyihii dusha kaga shubta dharkii iyo kuwii daahirka ahaana gooni hal mar aad wada maydho taa haddaadan samaynood isku wada maydhayso horta gebi waa isna nijaasaysa la soco wax daahira ma jiro maxaa lagaa rabaa marka maro walba marka ugu dambaysa eed ka soo saaraysa qasaalada biyo nadiifa inaad dusha kaga shubto ka maroojiso oo ka raaciso tu walba ila waa soo raaciso wixii oo adiga wadankiiba markaa isku wada sii daayeen najaasadiina waa in la zuuliyo intaas weeyaan khulaasada ahkaamta tahaarada ee rabaynaan soo khulaaseeyo wallahu a'lam su'aalaha inuu gudbina insha Allah tabaaraka wa ta'ala بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخنا سيدتك وحيد لهي شمك عن عادة لهي قرآن كما أخين كرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سؤاشا وسؤال بلنصون ونقطع وحن اسكت إن عجرها وبجرها إننا وحكتين إن شاء الله تبارك وتعالى أنت إيجارتي سنتهي aqoonteen inta laga maqan Allah inagu arsaaqo marka koobaad gabadhu marka ma akhrin kartaa iyada oo hayda quraankii mise ma akhrin karto qaybay noqon kartaa qayb waxa weeyaan qiraa'o quraan inta u qasada gabadhani inay markaas waxa weeyaan qiraa'atul quraan ay u qastaysay quraan ahaan u akhrinayso qaybta labaadna gabadhu inay markaas waxa weeyaan Allahu musta'an ay markaas waxa weeyaan duca ahaan iyo adkaar ahaan ay u akhrisanayso sida aayatu kursiga ay akhrisanaysaa way ducaysanaysaa waxay leedahay rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab waxay leedahay rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab وحيل هذا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلى آخرها وحي آخرنا الدعاء آيات أذكار بآخرنا مثلا مركي صوت وسطى وحي آخرنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يعني مركز حويا قرآنها مركز وما آخرنا أذكارها يدعاها بآخر السنة قيمتك كرنا أما قفي بأشياء كفو جنيسا
wixii marka qiraa'o ahaan iyo qur'aan ahaan ayna ula qastayna duca ahaan iyo adkaar ahaan ay ula qastayso dood kama taagna marka horeba oo inay marka wax muran iyo dood iyo ismaan dhaafa maba jiraba culimada dhexdooda qodobka soo kale waxa weeyaan haddii qiraa'o ahaan iyo qur'aan ahaan ay ula qastaysa ka waran waa mas'ala culimada muslimiintu ay ku kala aragti duwan yihiin culimada muslimiinta in badan oo kamidii waxay ku tegeen gabadhu inayna akhrinaynin bay ku tegeen iyaga oo fiirinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid laga wariyoo la sheegay markaas waxa weeyaa qur-aanka aqrin maayo junub iyo xaayado toona axaadiidta baabkaa ku soo aroortay ma ansaxay mise ma ansixin wallaahu aclam culimada in badan oo kamidana waxay ku tegeen gabadhu qur-aanka way akhrin kartaa asalku waxay ahayd inay akhriso asalkii markaa wax u diidayaana ma jiro oo asalkii markaa gabadha ahayd inay akhrisa mar haddii daliil saxiix oo sariixo u diidaya aynaan haynin loo diidi maayo ixtimaalka miyaa qaacidadu waxa weeyaan idaa jaa alixtimaalu saqada alistidlaal walidaalika markaas waxa weeyaan ayaa markaa culimo fara badan oo alimaamu maalig iyo axmed fii riwaayatin iyo wajhun cinda shaaficiyati oo qowlka alimaamu lmusani iyo ay qabaan ah in markaas waxa weeyaan gabadhu ay akhrin kartaa qur-aanka culimo badanna sidaa ay ku tegeen oo alimaamu lbukhaari uu ka mid yahay alraajixu walsawaabu walcilmu cinda allah gabadha qur-aanka way akhrin kartaa xaa-idadiihi wax dhiba male way akhrin kartaa akhrinteedaasaynu marka laba u qaybin kitaabka qur-aanka inay qaadanayso iyo inayna qaadanayna dusha ay ka akhrinayso haddii ayna markaa kitaabka qur-aanka ah ay qaadanayso kitaabka qur-aanka inay qaado looma ogolo kitaabka qur-aanka inay isaga qaado looma ogolo maxaa ii soo hadhay imaa inay dusha ka akhrinayso gabadhu wa imaa inayna dusha ka akhrinayna mobeelka iyo applicationka ay ka akhrinayso wa imaa kitaab tafsiira oo tafsiirka iyo qur-aanku markaa tafsiirku uu ka badan yahay ay ka akhrinayso saddexdaa arrimoodna way u bannaan tahay dusha hadday ka akhrinayso mobeelka hadday ka akhrinayso kitaab tafsiira oo tafsiirku uu ka badan yahay qur-aanka ay ahay wadatana iyadana markaa way ka akhrin kartaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ummanaa caaisha radia allaahu canha wa ardaaha markii ay dhiigtay waa xajatulwadaac iyadoo dawaafkii kacbada la iman yaa dhiiggii caadadaa ku yimid markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo markaas waxau ku yidhi isnacii maa yasnacu alxaaju gayra an laa tatuufii bilbeyti qofka xaajigii wax kastuu samaynayo maadu waa min alfaadi alcumuum samee adiguna laakiin kacbada ha ku dawaafi waxa xaajigu uu samaynayo waxaa ka mid a adkaartii inuu akhristo qur-aankii inuu akhristo ayaa ka mid a soo maaha idan ma oranin qur-aanka ha akhrin oo nebigu uma diidin calayhi salaatu wasalaam wuu ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam hawshaa uu ka aamusay keliya wuxuu u diiday dawaafka saa darteed markaas waxa weeyaan gabadhu way akhrin kartaa wallahu aclam walcilmu cinda allah laakiin kitaabka qaali mayso sheekh sayidadana waxay leedahay waxaan galaa mararka qaar muxaadarooyin qur-aanka ma daliishan karaa anigoo dhiigga caadada leh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم هدي أنا مرخص حوي يعني يضع وعدي بالجيدين القرآن كآخرسان لني تم وعدي الجيدين سنة من باب أولوية يعني سوق على آياتك كتاب القرآن كان ينفرح سعر والله أعلم سيدنا تدخل وحي لهي وقت عادة مرق قار عن كجر وحي قادتا وقت الآن خلال لو يتوقع شوعان اسكوحيك مرق صدح عشو أما أفر عشو ولو يتوقع نحن أيام ظاهر أهي لما تكون كلا صلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم ليق عاذ فقهاء رحمة الله عليهم
taxdiidaad bay ku sameeyeen qadarka uu soconaya ugu badan iyo inta qaalibka iyo inta ugu yarba way xadideen iyagoo u daliishanaya atatabucu walistiqraa'u iyagoo u daliishanaya haddaba inta ugu badani waa 15 cisho haddii ay kaba yar tahay 15kii markaa oo 12 cisho ay markaa kaga go-ayo laakiin inta u dhaxaysa uu yar go-ayo oo imanayo markaas waxa weeyaa xukunkii caadada un bay qaadanaysaa oo weli gabadhu ma daahiroon su-aasha sida ku cad markaa haddii gabadhani markaa 4 cisho wax dhiiga una ka imanaynin markaas waxa weeyaan oo mustamir ay tahay oo joogto ay tahay oo 4 cisho oo isku xiga wax dhiiga una ka imanayn iyaduna caadadeeda sidaaba ay ku taqaano oo bishan 12 cisho u socdaa laakiin 4 cisho dhexdaa ma yimaado bisha dambasaas oo kale toddobasaas oo kale waa caado ay taqaano marka waxa weeyaan Allahu musta'aan xukmi dahaarada ay qaadanaysaa 10 cisho 4 cisho dhexdaa haddii laakiin marka uu yar go-ayo oo markaas waxa weey marna uu imanaya marna uu yar go-ayo joogtana una ahayn 4 cisho laakiin 4 cisho xiriira una markaa ayna go-aynin dhiigu laakiin uu marna yar go-ayo marna uu yar imanaya 4 cisho gudahood waxba mayran mayso ay way iska sugaysaa muddadeedii caadiga intay gaarayso wallahu a'lam su-aasha afraad waxay leedahay marka aan caadada qabo dharka aan xidhanahay ama garbasaarta ma lagu tukan karaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi lamiy wacala aalihi wasaxbihi wasalim su-aasha waxaan u fahmay markaan dhiigga caadada aan leeyahay dharkii aan huwanaa miyaan ku tukan karaa markaan daahiroobo hadday sidaa tahay su-aashu haddayna ahayn ma sheegin hadday sidaa tahay oo ah dhiigga caadada intii aan qabay dharkii aan markaas waxa weeyaa huwanaa miyaan ku tukan karaa markaan daahiroobo haa waad ku tukan kartaa wax dhiigi iyo najaaso ah hadduuna soo gaarin waad ku tukan kartaa wallahu aclam su-aasha shanaad waxay leedahay marka aan daahirsanayo waxaan u maydhaa si caadi ah kadibna waan weysaystaa ma wax dheeri ayaa jira alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi lamiy wacala aalihi wasaxbihi wasalim gabadhu dhiigga caadada markay ka maydhato kadib ay soo baxdo haddii ay weysaysato dhib ma leh laakiin sidii afdalka ahayd ee fadliga badnayd bay khilaaftay sida fadliga badan waxa weeyaha marka hore ay maydhanayso inay qeybta hore ee markaas waxa weeyaan jirka ama xubnihii laga weysaysanayay ay weysaysato lugaha keliya ay u hadhaan lugahana marka ugu dambeysa ay ka raaciso haddii kale waxa ay samayni kolka ugu horeysay weysada dhammaystiriba marka dambena maydhigii bay dhammaystiri markaa xubinkeedii taranka iyana taaban mayso oo intan ka horeysa xilliga istinjada ayay maydhi xubinka taranka iyo hayrihiisaba xilliga maydhigana waxba taaban maysa intii kale ayay maydhi sida afdalkii marka waa in ama weysadu ka horeyso ama markaa qeybta hore inta la weysaysto lugaha xagga dambe la mariyo ama maydhigan aada maydhanaysaba inaad u niyooto weysadiina inay ku dhex jirto saddexdaa kayfiyaa fiican weysada in laga dambeysiyaa dhib ma leh laakiin sida ka fiican waa sidaa inaad weysada horeysiso wallahu aclam su-aasha lixaad waxay leedahay haddii anigoo 5 maalmood caadada leh ay iga goodo maalinka lixaad aan soomo kadib markuu sii dhacay ama ay qoraxdii sii dhacaysay ayaa waxaa dhacday dhiiggii caadada ayaa igu soo noqday markaa soonkaygii muu jiraa qoraxdii oo aan weli dhicin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi lamiy wacala aalihi wasaxbihi wasalam hal sikin hadday ka dhiban tahay caadada dhicitaankeeda dhiigguna uu kugu yimaado soonkaagu u bulay saasuu ku bulay soonkaagu dhiiggan soo noqdayna mar haddii 15 cisho weli aan la gaadhin dhiiggii caadadu baa lagu xambaari ee dhiig faasida lagu xambaari maayo wallahu aclam soonkaaguna u bulay insha allahu tacaala su-aashan ayaan kusoo khatimaynaa gabadha ee qur-aanka akhriya khilaaf baa ka jira balse gabdhihii saxaabiyaadka weliba qur-aanka bay akhriyi jireen alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi lamiy wacala aalihi wasaxbihi wasalam taasi waxay u noqonaysaa asalkii markaas waxa hore muxuu ahaa inay qur-aanka akhriyaan soo maa
haddii aynaan haynin daliil odhanaya mayna akhrin jirin dee inay akhrin jireen baan ku xambaaraynaayo way akhrin jireen baan dhahaynaa daliil odhanaya mayna akhrin jirin oo caaisha markuu dhiigga caadadu ku yimaada mayna akhrin jirin xafsa mayna akhrin jirin umu salama mayna akhrin jirin umu sulaym mayna akhrin jirin saxaabiyaadkii mayna akhrin jirin daliil odhanaya ma hayno xadiidka ku soo aroorayna si guud macnaha in la akhrinayna waa daciif baan idhi marka waxa weeyaan way akhrin jireen sida asalku uu yahay khilaaf masalada ha ku jiro dee culimadu ha isku maandhaafaan ama ha ku kala aragti dugnaadaane laakiin sawaabku waa sida aan ka soo jawaabnay inay akhrido wax dhib aan lahayn wallahu aclam معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال